بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومصطفاه أما بعد لما ولا لها كنت حن بقى يجن فيسبوك قيبتي سؤاله وحن سؤاشا ما أنت كسو قادينا أرين كسابسا ilma la helay oo gabadh ah oo la soo koriyey haddana weynaatay guriyo gurina u baahan dadkana dhaqan iyo dhaxal ka dhexeeyo maxaa la samayn karaa طبعا mas'aladan mas'alo hadda cusub maaha ilmo meel laga soo helay iyo axkaamtiisu baabu axkaami laqiiti baa la yidhaahdaa ilmo meel lagu tuuroo lasoo qaaday culimada qaar baa kutub ka qoray iyo axkaamtiisa laakiin qaybaha axkaamtii ka mid ah qaab nololeedka hadda jiriya isbeddelkiisu labadaba saamayn bay ku yeelatay qaabka noloshu u samaysan tahay hadda iyo ilmo kasta abtir iyo dukumenti iyo waalid la yaqaano la tix raaco loogu tiriyo inuu yeesho in lagama maarmaan tahay dunida inta badan wanada ka hor qasab ahaan jirin iyo noloshii hadda ahayd oo taasi ay dhalinaysa marka la sameeyo dhaxal iyo dadka isku dhex jirkoodii ilmaha haddii la soo helo marka u horeysa diiwaangelin iyo magac buu u baahan yahay hadday suuragal tahay saddex arrimoodba in la sameeyo mid uun waa muhiim wayse kala horeeyaan haddii lagu abtirin karo aabba dhintay iyo hooyo dhimatay dhimashada labada waalidna loo samayn karo ay ka suuragal tahay meeshaas waa dariiqa loo baahan yahay in la sameeyo magaca aabbaha iyo awowgana laba magac oo addoommo ilaahay ah baa loo bixin cabdullaahi cabdiraxmaan cabdicasiis cabdiqaadir iyo kuwa lamidka ah qof kasta oo aabba u ahaaye cabdullaahi addoon ilaahay waa ahaa qof kastoo awow u ahaana cabduraxmaani waa ahaa arrintaasi laba wax bay ka caawin hadday suuragal tahay marka koowaad waxay caawin in ilmahani ay fududaato inuu ogaado hooyadanna inaynan dhalin aabbahan carruurta kala dhalayna uusan dhalin hadhowna si fudud iyo siyaabad badan baa tartiib loogu sheegi karaa dukumentiya magaciisaa caddaynaya inuusan aabbahan iyo hooyadan reerkan uu la koray carruurtu qaarna ka waawen yihiin qaarna ka yaryar yihiin ay dhici karta inay saa tahay inuusan hayn hadhow isaga waxaad uu sheegi kartaa si fudud meelaa dagaalla ka dhacaan meelay cudurro daacuunna ka dilaacaan haddaba cudur dad baabi'iyey baa socda in wakhtigaasoo saas dhacday xilligaasoo la qaxayey xilligaasoo doon degtay dee dadkii safar baan isugu nimid dee baa hooyadaa intaasay noo sheegtay hooyadaa adoo yarku wadatayna meeshii bay ku dhimatay in la yidhaahdo sidaas darteed de waynu wada soconnay sidii baan kuu soo qaadnay hooyadaa magaceediina waa kuu ilaalinay aabbaha magaciisiina waa kuu ilaalinay intaa ka badanna garan mayno dadka safarada isugu yimaada iyo qaxana isma yaqaanaan way sahlanaanaysaa ilmihii saad ku soo qaadda iyo abaalkiina inuu xasuusnaado uusan dhow cuqdad qaadin adigiina uusan dhaxal iyo wax lamidihi iyo abtir lumay kugu dhex noqonin waa hadday suurageli karta dariiqa saxdaa wey taa marka la gaaro waad ka badbaadaysaa gabadhan aabbaheed waa dhintay qaraabaan nahay annagaa dadkeedii oo hadda ah joogna ninkii guursanaya waad ku dhihi kartaa inaad details faahfaahin sii gashana uma baahnid inay qof muslim oo wanaagsan tahay baa ku filan sidaa hadduu ku guursan lahaa ku guursado
adigoon fidaysiya baafaahin iyo meel baan ka helay iyo meel baan ka soo qaaday midna aan dheh qofka muslimka oo dhanna dadku waa wada qaraabo iyo ahl wey hadday taa suurageli weydo aabbaha ha loo raadiye mid kale hooyadana ha loogu abtiriyo abtirka nasabka ee inaan la bedelo la rabinayo muhimkiihi waa dhinaca aabbaha intaba hadday suurageli weydo oo duruufta noloshu ilmihii inuu dayacmo ama gaalo qaadato mararka qaarkood looga baqo min baabi daruura tubixu lmaxduur daruuraadku waxa xaaraanta ay banneeyaan dadkaas waa lagu dari karaa laakiin haddana weli waxaa mudan in furas iyo munaasabaad la eegto ilmahan intuusan aada u fogaanin aysan weynaanin lala wadaago wixii waxaa ka dhalanaya dhaxal wixii waxaa ka dhalanaya maxramnimo dad uusan naas la nuugin hadday ilmo yar tahayna wiil yar yahayna kuwanaaba lala nuujin karaayo qoyska waa laga bixi karaa xarajka iyo dhibka walaalo nuugmuu noqon karaa laakiin dad kale oo qaraabo oo walaalo iyo adeero iyo abti iyo habaryaro oon ahayn baa jira dad kale oo qaraabo ah oon soo gelaynin baa jira isaga saamaynaynin oo kuwan walaalala ah oo hooyo kale ay dhashay dadka sidaasoo kale asaynan u saamaynin in taxadar la sameeyo oo ilmihii loo soo sheego bay u baahan tahay adigu waxay rabtay ixsaan inaad samayso ixsaankaaguna korinta iyo weynaynta wey in wixii jiray runtaa markaad u sheegto ilaaheeda oo kaga cabsanaya oo cuqdad qaadoo xumaadana dembi adiga ku saaran ma aha dembi aan adig ku saarayn dembi ha u gelin hadduu ilmihii hadhow isxumeeyo oo reerihii ka cararay isagoo qaangaara od adigu wixii aad bari kartay soo bartay waxaad ixsaan soo samayn kartay soo samaysay intaa ka badan dembi kuma saarna inta ixsaan aad samaysana ajirkeeda ilaahay baad ku leedahay inta kalena wixii sharci ahaan khaldami lahaa inaad ka taxadartaa ku saaran saas darteed masaladaasi dad badan bay qabsataa gaar ahaan xilliga dagaalada iyo qaxa iyo markay dhibaatooyinkaas oo kaleeta ay yimaadaan ilmahaasna ha laga dadaalo hadday dowladiiyo meel muslim iyo wax daryeelaya jiraanna markay ilmahaasi soo koraan dowladdiiyo ha lagu wareejiyo si ay dantiisa iyo duruuftiisa uga shaqeeyaan dadkiisa muslimka ee guudna dhinaciisa uga raaco intaasaan su-aasha maantana kusoo gabagabaynaynaa ilaa su-aalaha dammaan isaga nimaadno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu